sida caadiga ah waxaan aragnaa magaalooyin ka kooban guryo aad u badan isla markaana dad kala duwan ay degan yihiin laakiin in ay dadka magaalada idil ku noolaadaan ama degaan hal dhismo waa mid qaas ah waana sababta aan muuqaalkan idinla wadaagayno. Whittier oo ah magaalo ka tirsan gobolka Alaska ee dalka Mareykanka waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 220 qof kuwaasoo wada degan hal dhismo marka laga reebo nin la yiraahdo Powell kaasoo ku nool guri asiga u gooni ah oo aysan la wadaagin bulshada magaaladan yar ku dhaqan. Dhismaha ay degan yihiin dadka magaaladan ma ahan guri ay ku nastaan ama ay seexdaan oo kaliya balse waa dhismo ay ku dhex shaqaystaan waxna ku bartaan isla markaana ay wax ka dhex iibsadaan. Dhismahan ay dadka magaalada idil ku wada sugan yihiin wuxuu ka kooban yahay 14 piano waana mid lagu magacaabo Big Towers kama koobna oo kaliya qolalka caadiga ee dabaqyada dadka degan laakiin waa mid gudihiisa laga helayo waxyaabaha asaasiga ah ee dadka magaaladan u baahan yihiin. Wuxuu leeyahay qayb boolisku joogaan, qayb suuqa laga adeegta ah, qayb maktabad wax lagu akhrista ah, qayb u gaar ah carruurta oo ay ku ciyaaraan, qayb hoteelo ah, qayb dharka lagu dhaqo, qayb dawooyinka lagu gado isla markaana dadka lagu dabiibo iyo qayb wax lagu barto. Laakiin lagama helo dhismahan McDonald's iyo maqaayado. Haddaba sababtu maxay tahay? Dadka magaaladan ee halka dhismo degan waa kuwa ku tirsan kalluumaysiga iyo sidoo kale xayawaanada deegaanka waana kuwa ku kaydsada cuntada qaboojiyaasha kala duwan. Magaaladan hal wado ayaa soo gasha isla markaana ka baxda. Midda gaarka ahna waxay tahay in wadadan waqtiga habeenkii la xiro waxaana maalintii isbedela jihada wadadan ee bixidda iyo gelidda ah. Magaaladan falal dambiyeedyada ka dhaco waa tiro aad u yar balse ma ahan sababta ka dambeysa in dadka magaaladan tiradoodu yar tahay balse sababtu waxay tahay midnimada ka dhaxaysa dadka magaaladan. Waxaana macquul ah haddii uu dego dhismahan qof xirxiran oo aan bulshada dhex gelin in ay dabiicadiisa isbedesho maadaama uu daris la noqonayo dhammaan dadka magaalada. Sidoo kale waxaa suurtagal ah qofka dembi galaa in boolisku gacanta ku dhigaan intuusan dhismaha ka bixin. Xitaa haddii uu dhismaha ka baxo ma jiraan dhismooyin badan oo magaalada ku yaalaan isla markaana uu isku qarin karo. Carruurta dhismahan degan haddii aad macallin u noqoto waxaa laga yaabaa in saq dhexe qolka kugu soo garaacaan si aad ula xaliso ama uga jaahil bixiso sadaro ka mid ah casharka aad siisay. Laga yaabay in aad isweydiinaysaan wax ku qasbay dadkan inay hal dhismo wada degaan ayadoo uu dhulku ballaaran yahay ayaguna tiradoodu yar tahay. Gobolka Alaska ee waddanka Mareykanka wuxuu ka mid yahay labada gobol ee aan ka dhex muuqan qariirada dalka Mareykanka ee goonida uga baxsan. Wuxuu leeyahay gobolka cimilo la yaab leh. Xilliga qaboobaha waxaa aad ugu badan barafka. Cimiladan ayaana ka dhigtay gobolka ugu qabow gobolada Mareykanka. Magaalada Whittier oo ka tirsan gobolkan isla markaana dadkeedu ay degan yihiin halka dhismo wuxuu baraf ku daboolaa oo uu ka sare maraa dhulka 1 mitir iyo wax ka badan. Waxayna saacadii xawaareysaa dabeesha 62 mayl balse intaan kuma eko sababta ka dambeysa in dadka magaaladan degaan hal dhismo. Sidoo kale waxaa ku nool magaaladan xayawaano khatar badan oo dad cun ah waana sababta carruurta loogu sameeyay meel u gaar ah oo dhismaha ka tirsan. Laakiin su'aashu waxay tahay maxay dadkan halkan ka soo dooneen ayagoo heli kara in ay degaan magaalooyin kale oo Mareykanka ah. Su'aashan jawaabteedu waxay u laabanaysaa dagaalkii labaad ee adduunka oo ku beegan marka la aasaasay magaaladan Whittier si ay u noqoto xarun ay leeyihiin ciidanka Mareykanka. Dadkan halka dhismo degan ma ahan kuwa doortay magaaladan ee waa qaraabada iyo carruurta ay dhaleen shaqaalihii iyo ciidankii lagu aasaasay magaalada.